Soomaalida jamka ku nool waxay amaan isla dhex marayaan in waddankoodii lagu celinayo. Saddexdan qodob baan isla eegno ku saabsan dowladda jamka ciddii celiso iyo qaabka dadka loo musaafiriyo. Kow, qofkeeba la celin karaa. Dowladda jamka waxay celin karaan dadka negative la siiyo, dadka dambiyadooda farabataan iyo dadka integration aana samayn oo aana shaqayn iyo luqadda aana baran. Laba, qaabkiiba dadka loo musaafiriya. Haddii dowladdu doonayso in waddan kale ku musaafiriso, ka hor bay kula socodsiinayaan. Waraaqa lagu soo dirayaa, waxa xitaa lagu oranayaa adiga iska waddankaas kaga bax. Haddii aad laakiin iska tegi waydo, waxa macquul ah in habeen guriga ama kaamka lagugu imaado oo shaqaale ka socda oo slender antiga iyo booliiska ku kaxeeyaan diyaaradna ku saaraan. Saddex, maxaa marka maanta Soomaalida jamka ku nool xaaladooda iska bedelay? Runtii wax cad oo maanta shaki la'aan la sheegi karo lama hayo. Dowladda Jarmalka iyo Soomaaliya heshiis rasmi ah may soo bandhigin. Waxa laakiin hubaala in siyaasadda Jarmalka sanadaha soo socda isbedeli doonto. Xaaladana ay ku sii adkaani karto ajaanibta. Weliba dadka aan samayn integraasyon iyo dadka dembiyada faraha kula jira. Haddii aad laakiin sharciga ilaalisid, luqadana aad baratid, wax walba way ku fududaani karaan.